qaaliya waxgarad ka soo jeeda beelaha Abaryonis magaalada Burco ayaa maanta ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shir lagu taageerayo musharaxnimada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sidoo kale waxa ay kaga hadleen khilaafaadka ka dhex xaloosan xisbiga talada haya ee kulmiye ninbaa iskale ninbaa ku tabcay majaal malaha lagu wada hadli maayo markay taataay xisbiga ucud la yiraahdo in cali waraabaale waa la isugu yimid oo laga furi kari waayay kana waa la mid Siilaanyo iskale waxaan leenahay hadana aragnaa wax qabad ma aragnaa waxaan aragnaa halkii dalku uu ka dhaqaaqayay in laga bilaabay wadooyin baa laga bilaabay dooni mayno in wax dabka baxay in la baqtiyo ma rabno waxaanu leenahay dooni mayno in this time nin kale baan keeno waxaanu leenahay iska daa Siilaanyo in la doorto in wax loo kordhiyo he will be life president waxaan doonaynaa inuu noloshiisa madaxweynaha hada way waxba noo qabanaya dawladda jirta waxa loo kulmatay waqti horumarinta dalka ay gaadhisay ama nabadgelyadu taam noqonaysay ama ictiraafkii bal raadinayo waa ogtiina wadanka waxa ka socda mashaariic aad u fara badan oo jidada waxa ka socda waxbarashadii waxa ka socda caafimaadkii waxa ka socda mataqaanaa in ictiraaf raadintii waxa ka socda aqoontii iyo jaamacadii oo meel walba magaalo walba ay ka furan yihiin magaalo kasta intaasoo kun oo qof baa jaamacada iyo iskuulada u dareera maalin walba magaalooyinka Somaliland intaasoo inay baabado halkoodii ku noqoto dooni mayno la xajala inaga haysa xukuumadda jirta iyo xisbigu ay ka dhalatay ayaa ammaantaa leh waxay dalka soconayay maanta madaxda xisbigu shalaytu halkii ku faani lahaayeen qolyahaygii mucaaradka ama imka mucaaradka ugu faani lahaayeen ee oran lahayn waxaasaanu qabanay jaamacadaasaan hirgelinay wadooyinkaasaan hirgelinay ay shalayta lahaayeen maanta haddana wixii inay ka hor yimaadaan oo ay dawladda dhawaaqooda u soo baxo raali ka banin waxaanu jecelahay inay noo faanaan waxaanu jecelahay inay horumarin dalka gaarsiiyaan waxaanu jecelahay inay ictiraaf gaarsiiyaan ciddii maanta xumaynaysa ee ka hor imanaysa tadawurka aadka u dheerinaya ee ku socoto xukuumadda nimanka jirta ama xisbigooda ha ahaato ama ha ahaato cid kaloo dawladda kaga timaada wax weyn dan noomaa waan ku soo jeesanay shirkaraad aan ku qabanay geedkan hoostiisa waxaanu ka hadlaynaa ujeedada aanu ka hadlaynaana waxay ku salaysan tahay waxyaalaha had iyo jeer imika ka soo baxaya Hargeysa waaqaca siyaasadeed xisbigii xukuumiga ee kulmiye ka soo baxaya gudihiisa taasoo aanu ka baqayno in nabadgelyo xumo ay dalka iyo dadkaba u keento maadaama madaxdii xisbigu ee soo jireenka ahaa ay maxay tahay hadaf khilaaf iyo maxay tahay kala duwan oo ka soo baxay sidaa darteed waxaanu xisbiga ugu baaqaynaa madaxdiisa kala duwan ee midba wuxuu nooc kasta ha ahaadee wixii xisbigu shuruuc buu leeyahay qorshuu leeyahay xeer baa leedihiin yaanu u soo bixin dadka shacabka soo dhex gaadhin aad baanu uga naxnay waanaanu ka xunnay waxaanaanu leenahay shuruuc buu leeyahay xisbigu distoorkii Soomaalilandna waa qoranyo dawlad baynu nahay maanta beelaha waynu ka gudubnay haddii aynu ka gudubnayna ciddii khalkhal gelinaysa ama dan wadata waanu ka soo horjeednaa nabadgelyada Soomaaliland waa muqadas jooga halkan meediyahan waxaan u qabanay inaanu kaga hadalno khilaafkan kulmiye ee soo noqnoqday ee imika dibadda u soo baxay waxaanu leenahay haddaan ahay Maxamuud Ismaaciil Maxamed in kulmiye ku kala baxo shuruuc buu leeyahay marka hore mar labaadka shuruuc baa dalka u taala waxaanu ka hadlaynaa in labadaa sharci ee yaalla ay ku kala baxaan kulmiye ciddii ay siiyo sharciyaduna ay qaadato ciddii kalena hadho waxaan kale sheegaynaa ciddii aanu dareenno inay nabadgelyada khalkhal gelinayso u daba fadhiisan mayno
dalka nabadiisaanu ilaalinaynaa ciddii ku soo duushaanu ka qabanaynaa cidda dhexdeena ee wax ka wadaanu ka qabanaynaa ku soo wada duuba waxaa maalmihii u dambeeyey soo noqnoqonayay khilaafaad hareeyay xisbiga talada haya ee kulmiye taasoo qaybisay laba qaybood lama garanayo halka ay ku saldhigan doonto khilaafaadkani waa Khadar Cabdirasaaq Suleybaan shabakada caalamiga ee Harwanaag News magaalada Burco.